السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان walaalaha Soomaaliyeed aad iyo aad baan idin salaamaya meel kastoo adduunka ka joogtaan waa walaashin aamino qorane maanta waxaan jecelahay inaan idinkala hadlo our second productiga aynu rabno inaynu iibsano oo ah Otraka kaas oo ah kaynu hadeer maxaan ku idhahdaaye 7 cisho ay inoo dooran yihiin ee maxaan ku idhahdaaye aan free trailka ku haysano haddii Ilaahay yidhaahdo marka waxaan rabaa inaynu isla eegno maanta Otraka wuxuu yahay waa maxay Otraka waa shabakad dhammaystiran oo ku dabagelaysa kuna dabooleysa baahida aad u qabtid inaad ogaatid dhaqdhaqaaqa warbixinada website-kaaga okay wuxuuna ku siinayaa inaad target garayso ama aad beegsato dadka iyo goobta saxda ku ah business-kaaga eed u baahan tahay run ahaantii waxa weeye Otraka waa wax aad iyo aad u cajiiba waxa weeyaan wax dhaqaale aad u fara badan imika waxyaabaha trackingku waa meelaha ugu lacagta badan leh ee adduunka dhaqaalaha waxyaabaha laga sameeyo ay ka mid yihiin businessyada dadka maxaan ku raahdaayay waxyaabaha trackingka isticmaala toolskaasi marka trackingka macnihiisu waxa weeye sidii aad ku ogaan lahayd ayuu Otraka ku qabanaya sidii aad ku ogaan lahayd dhaqdhaqaaqa businesskaaga aad u fahmi lahayd intaas weeye ujeedada maxaan ku dhahdaaye uu ku samaynayo sababtoo ah maanta haddii aad maxaan ku dhahdaaye dukaan ku leedahay xaafadaada dhexdiisa ama maxaan ku dhahdaaye meel central yar oo suuqa aad ku furatay waxaad garan kartaa dadkan kuu soo gelaya dukaankaaga ee wax kaa iibsanaya waad la socon kartaa waad fahmi kartaa waxay doonayaan waxay ku weydiinayaan hase ahaatee markaad tidhaahid website oo internet ban wax ku dhex iibinaya because trackingkan wuxuu kuu qabanaya waxay tahay waa website-kaaga dhaqdhaqaaqiisii marka website marka tidhaahid waxaan rabaa inaan internetka wax ku dhex iibiyo oo maxaan ku idhaahdaaye aan u isticmaalo dhammaan adduunka oo dhan meel walba ama gobolkaad ku nooshahay ama waddanka degan tahay oo qurata aad tidhahdid halkaasaan rabaa inaan businesskayga gaarsiiyo oo waxaan rabaa inaan xaafadan ka guuro aan calashan xaafadan kor uga qaado sida imika dukaamada dharka oo kale yacni iyagoo localka kule haddana internetkii ku iibinaya maxaa internetkii qof kasta oo meel kasta jooga ayaa adduunkii ka dalbanaya markaad kaa damacdid eed kor u soo qaadid businesskaaga ee tidhaahdid online baan wax ku iibinayaa website-kaagii wuxuu u baahan yahay in aad tracking samaysid inaad maxaan ku idhaahdaaye aad heshid tool tracking kuu samaynaya dhaqdhaqaaqa website-kaaga macmiishaadu maxay jecel yihiin maxay xiiseeyaan maxay maalin kasta soo booqdaan inaad ogaatid aad ayay muhiim u tahay waana ka maxaan ku idhaahdaaye kani uu noo sahlaya marka Otraka uu Ombasif keenay wuxuu koobsaday uu meel iskugu keenay dhammaan tuulalkii kale ama waxyaabihii kale ee maxaan ku idhaahdaaye hore loo isticmaali jiray imika keebaa ugu caansan waxa ugu caansan Google Analytics kan ay yidhaahdaan kaasi yacni hadda waxa isticmaala 37,000 maxaan ku waxa 37.9 million website ayaa isticmaala hadda maxaan ku idhaahdaaye Google Analytics maxaad u malaynaysaa markaa waxa jira intaasoo sababta Google Analytics dadku badankoodu oo isticmaalaana ay ku sababaynayaanna waxa weeye waa safety bay ku isticmaalayaan bal inaga Otraka oo maxaan ku dhahay noo qaada dhigi doono insha Allah safety-giisa iyo siduu yahay maxaad u malaynaysaa dhaqaalaha yacni uu sanadkii la rabo inuu sameeyo uu suuqa ka soo xareeyo waxa weeye inuu 2027 waxa la filayaa 55.49% inay website-dadu isticmaalaan oo kor ugu kaco oo 27kan maxaan ku dhahay wax yar inaga xiga haddii Ilaahay yidhaahdo marka runtii Google maxaan ku idhaahdaay Otraka suuqiisu aad ayuu xaami u yahay markuu soo baxana waxaan hubaa
in maxaan ku idhaahdaay dadku aad maxaan ku idhahay iskugu qabsan doonaan hadday tahay businessyada yaryar hadday tahay kuwii mediaha ahaa ee dhexdhexaadka ah iyo hadday tahay enterprisekiiba saddexdii qayboodba maxaan ku idhahday oo trackerkeenu uu leeyahay oo qayb walba maxaan ku idhaahdayay waxay iibsanaysaa kii ay jeclaayeen ee u khaaska ahaa okay haddaba haddaynu isla eegno what oo tracker can do for your businesskaaga wuxuu u samayn kara oo tracker kow wuxuu ku samaynayaa trackingkii qofkiibuu kuu dabagelayaa recordings buu kugu samaynayaa ip locationko ay dadkaasi maxaan ku idhahday locationkoogii saxda ahaa buu kuusoo maxaan ku idhahday ipgii adresskoogii baad helaysaa wuxuu kuu samaynaya identify your click frauds waa waxyaabuhu caanka ku yahay maxaan ku idhaahdaye uu iminka hore waxaan idinku soo sheegay in google analytic waxa sababta ay dadku badankiisa kaa u isticmaalaan oo hay u yahay waxa weeye calashaan safetyga oo tracker wuxuu kuu sheegayaa fraudka ama website-kaaga kliiga qofka maxaan ku idhahday raba website-kaaga inuu maxaan ku idhahdaye dhaco oo fraud gareeyo markiiba wuu kaa joojinaya wuu kaa balogaraynaya ip adresska qofkaasi mar dambe hadduu balogarayo never telefonkaa maxaan ku idhahda in dib looga isticmaalo wuxuu kuu sheegayaa maxaan ku idhahdaye view visitors statistical reportiga saxda ah ee inta saxda ah ee dadka ama kuwii hore kuu jooga markasta kusoo booqda businesskaaga markasta dadka ku xidhana ama kuwa cusub tirada saxda ah ayuu kuu sheegayaa waxa kaloo uu kuu provide garaynaya accurate maxaan ku idhahday geolocationka ay maxaan ku idhahday dadkaasi saxda ah ee halka ay kasoo gelayaan xaggay joogaan ma waxay joogaan maxaan ku idhahday magaaladii waddankiibuu kuu sheegayaa waa sidaa maxaan ku idhahdaye qayb ka mid ah maad aragtay otrimku oo trackerka qayb ka mid ah ayuu ku jiraa wuxuu kuu sheegayaa magaaladii wuxuu kuu sheegayaa maxaan ku idhahday halkay taagan yihiin wixii oo dhan buu kuu sheegayaa wuxuu kuu provides age group and genderkii wuxuu kuu kala sheegayaa welibana dukaankaaga iyo meheradaada cidda ku xidhan da'dooda groupis buu kuugu samaynayaa da'da 40 ilaa inta da'da da'yarta ah genderka nooca ay yihiin ma ragba ma dumarba wixii oo dhan buu kuu sheegayaa wuxuu kuu sheegayaa generate user heatmap oo run ahaantii midka aadka u cajiibka ah heatmapka ayuu ku siinayaa maxaan ku idhaahdaye saxda ah oo color ayuu kuu marinayaa meelaha xaamiga uu ku yahay maxaan ku idhahdaye suuqaagu ee aadka looga isticmaalo so iminka haddaad aragtid maxaan ku idhahdaye lacagta waxaad ku bixinaysaa marka trafficka iibsanayo qofkii meesha suuqiisu xaamiga ku yahay so iminka oo kale haddii maxaan ku idhahdaye magaalada maxaan ku idhahda bristol oo kale aad looga isticmaalo businesskayga magaaladaasaan ku farabadinaya haddii waddanka maxaan ku idhahdaye soomaaliya oo kale businesskayga aad looga isticmaalo trafficayga oo dhan waddankaasaan direct maxaan ku idhahdaa ku isticmaalaya so wuxuu ku tusayaa heatmapkii meelaha xoogga looga isticmaalo isaga oo si fiican kuugu calaamadinayo website-kaaga waxa kale oo maxaan ku idhahdaye uu leeyahay schedule geofencing maxaan ku idhahdaye iyadana wuu kuu samaynayaa get daily visitor count your website-kaaga iyadana wuu kuu samaynayaa security and privacyga oo aad muhiim u ah oo tan idinkala soo hadlaye google-ka lagu doortay onbasive dhammaantii maxaan ku idhaahdaye qofka dhaatadiisu safe ayay tahay halka maxaan ku idhahay dadka kale dhaatadooda iyo waxooga la kala iibsado onbasive wixii dhaata ah ee kaa hayso safe ayay tahay iyada ayuunbaa maxaan ku idhaahdaye halkaa kuuga haysa cid alla cid ogaan kartaa ma jirto ta kale ee uu maxaan ku idhahdaye cajiibka ku yahay ee uu maxaan ku idhahdaye oo tracker waxa weeye qiimihiisii haddeer maxaan ku idhahdaye enterprise-ka google markay isticmaalayaan kiisa analytiga waxay bixiyaan 12,500 bishii per month yacnihii oo trackana waan hubaa
inuu maxaan ku idhahdaayey fraction aad u jaban uu ka noqon doono maxaan ku idhahdaayey kan kuwii hore u jiray waayo haddeer waxaynu soo aragnay maxaan ku idhahdaayey oo connecti oynu aragnay 3 balood qiimaha laynagu siiyey inta uu yahay iyo sida uu aadka ugu jaban yahay okay waxaan rabnaa markaa haddana inaynu isla eegno haddaba meel yaa u baahan who need otraka meel heel looga baahan yahay otrakarkii horta innaga ombasifiyaan ahaan dadkeena reer ombasif waxaynu u baahannahay haddeer uma baahnin laakiin markaa maxaan ku idhahdaayey laynoo soo saaro websitekeena qof kasta website u khaasa uu lahaado oo uu yeesho markaas ayaynu maxaan ku isagoo kumbanigu inoo shaqaynaya haddana qofkii raba inuu more maxaan ku idhahdaa businesskiisa hore u sii mariyo u dhaqdhaqaaqa businesskiisii iyo wax walba maxaan ku idhahdaa iyagu toos ula sii socdo markaas ayaynu u baahannahay otraka laakiin waqti xaadirkan affiliate linkigeena dadku ay haystaan uma baahna maxaan ku idhahdaa otraka hase ahaatee insha allah dhowaan markuu sanadkan intuuna dhammaan ayaynu rajaynaynaa inuu soo baxdo qof kastaaba uu domain namekiisa iyo wixiisa oo dhan loo iskugu wada habeeyo oo waqtiga aynu isticmaalno marka marketingkii iyo advertisementkii ayaa u baahan websitedadoodii ayaa u baahan inay isticmaalaan otraka hospital and health carekii oo dhan baa u baahan iyaguna inay isticmaalaan goobihii dhakhaatiirtii iyo caafimaadkii oo dhan ayaa iyaguna u baahan inay isticmaalaan retailkii baa iyaguna u baahan websitedii retailka ahaa ee tafaariiqda ahaa inay iyaguna isticmaalaan otraka waxaa kale oo u baahan constructionkii websiteyadii dhismayaasha ayaa iyaguna u baahan inay isticmaalaan otraka haddeerna wada isticmaala maxaan ku dhahay tools kale oo laakiin qaaliya information technologygii qoladii maxaan ku idhahdaa itgii iyo servicekii ayaa iyaguna u baahan inay isticmaalaan maxaan ku idhahdaayey websitedadoodii otraka inay isticmaalaan waxa u baahan iyaguna maxaan ku idhahdaayey qaybtii hoteeladii restaurantiskii baa u baahan iyaguna inay isticmaalaan computer softwareadii ayaa iyaguna websitedadoodii u baahan yihiin inay otraka isticmaalaan aan more iyo qaar kale oo kasii fara badan ayaa u wada baahan inay isticmaalaan otraka runtii waxaanan qabaa oo yacnihii dadka maxaan ku idhahdaa aadka ugu xogta daloola ee u akhriyena ay maxaan ku idhahdaye ee og yihiin inuu otraka run ahaantii keligii uu nolosheena wax ka bedeli karo keligii haddaad otraka oo quraad aad iibsatid oo subscribe garaysid maalintuu soo baxo keligii baa kugu filan sida oo connecti keligii uu kuugu filan yahay ayuu isaguna business keligii taagan oo maxaan ku idhahdaye kugu filan uu u yahay marka walaalahayga Soomaaliyeed insha Allah waxaan idinku boorinayaa si aan maxaan ku idhahdaa guur iyo horumar aynu wada gaadhno in aad every product kasta oo companygan inoo keeno aad subscribe garaysid oo maxaan ku idhahdaye aad iibsatid si dhaqaalo fiican aad u samaysid maxaan ku idhahdaye waxbana ayna kuu dhaafin aad iyo aad baan idii salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh